Gabadha caanka ka ah barta TikTok ee la yiraahdo Maslaxo ayaa beenisay warar saacadihii u dambeeyay la isla dhexmarayay baraha bulshada kaas oo ahaa in Maslaxo ay qabto ama uu ku dhacay xanuunka kansarka maqaarka. Waxaan la hadlayaa dadka xunxunka ah aniga beenta iga sheegay oo waalidkayga murugada geliyay oo waalidkayga ka ilmeysiyay dad dhahay way dhimatay dad dhahayna kansar ku dhacay. Intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Maslaxa Saalax oo kamid ah dhalinyarada isticmaasha social media gaar ahaan barta TikTok caanka ah haysatana malaayiin followers ah ayaa waxa maalmihii dambe la isla dhexmarayay in ay xanuunsan tahay. Iyada laftirkeeda waxa ay soo dhigtay barteeda Snapchat-ka qoraallo iyo muuqaallo ay ooyeyso waxaana qoraaladaasi qaarkood ku qornaa in ay u soo duceeyaan bulshada Soomaaliyeed maadaama ay xanuunsaneed balse xanuunkii Maslaxo ay ka cabanaysay ayaa siyaabo kala duwan ay u falanqeeyeen bahda baraha bulshada ku jirta. Qaarkood ayaa sheegay in Maslaxo waxa haya ay tahay sidoo kalena qaarkood waxa ay sheegeen in Maslaxo la sixray. Dadkii baraha bulshada ku jiray ee qaarkood caanka ah ee falanqeeyay arintan ayaa haddana waxa maalin walba isa soo tarayay wararka ay Maslaxo ka sheegayaan iyaga oo sheegay qaarkood in xanuunka Maslaxo haya aan la aqoon sidaas daraadeedna aysan ku degdegayn in ay xanuun iska sheegaan oo hadhow in lagu qabsado ay timaado. Sheekada la xiriirta xanuunka haya Maslaxa Saalax ayaa waxa uu gaaray meel fog waxaana saaka soo baxday war sheegaya in Maslaxo ay qabto kansarka maqaarka sidaas daraadeedna wadanka gudihiisa waxba looga qaban waayay. Qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo xigteen warkaasi sheegaya in Maslaxo ay qabto xanuunka kansarka maqaarka ay ka soo xigteen familkeeda gaar ahaan saygeeda Joojole. Waxayna sheegeen in Maslaxo kansarka maqaarka ay qabto sidoo kalena ay ka qaaday xanuunadaasi ama xanuunkaasi dawooyinka la isku cadeeyo ee gabdhuhu marsadaan lagana yaabo sida ay qaarkood sheegeen in kansarkaasi ay ka qaaday sharoobooyinka la isku cayliyo ee gabdhaha Soomaaliyeed aadka ay ugu bateen maalmahan in ay isticmaalaan. Haddaba hadal hayntii ay dhalisay in Maslaxo ay qabto kansarka maqaarka wadankana waxba looga qaban waayay kadib waxaa soo hadashay Maslaxo waxay muuqaal soo dhigtay barteeda TikTok waxayna ku soo qortay qof walba oo been naga sheegay hal soo shargareeyo taas oo ka dhigan in waxa laga sheegayo ee ah in ay qabto xanuunka kansarka maqaarka ay been tahay. Dadka qaarkood ee social media isticmaala ayaa waxa ay digniin u jeediyeen dadka kale ee social media la isticmaala ee beenta ka sheegaya Maslaxo kuwaas oo ku tilmaamaya in ay qabto xanuunka kansarka maqaarka. Waxayna sheegeen intii ay habaari lahaayeen gabadhan dhalinyarada ah ee hadda uu adduunka u cusub yahay ama mustaqbalkeeda hadda wadadii cagta saartay guusha ay u duceeyaan. Waxayna sheegeen in xanuunka Maslaxo haya uusan ahayn kansarka maqaarka inta ay og yihiin ama sida ay u maleynayaan. Waxayna bulshada Soomaaliyeed ka codsadeen in Maslaxo loo duceeyo habaarkana ay ka daayaan dadka habaaraya ee u saadinaya xanuunada kala duwan ee qaarkood aan waxba laga qaban karin ilaa qofka uu qaato dawooyin kaalmaati ah oo in cabaar ah uu ku sii noolaado.